السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي شرفت بدن وإذن سلام ميل وبودوني تعالى ذلك جوجتين كسر دوال channel كان عايشة لايف ستايل هذا كل عصب تاي سبسكرايب صار هذا تسي جو جرت لايك شير تو حاجة أصحابته ما أنت عايشة محنا وده أصحابي عايشة ما أنت إنه موضة وحكلا ورفر حد يعني إذن موضة وقصل شيك عادينا إذن موضة وحيدين موضة قصة أبو العضي أو مالمهن شلي عملنا ننتهي درنت أد بجر سوشيال ميديا وأصحابي قصة أد وياب وله محيطة قصة داس أنا قف كاسيتي كود علي وهو الصومالي ذا عروتي ذا لقاطي وحاربنا أصحابي ورد الدون كان ولا لوبي هاي قرعت وحسب قبنا يسمونها مو فهمتين قرعت وحسب قبنا يسمونها الدون كان ولا لوبي هاي markaas asxaabtayda qaaliga waxaan rabaa inaa yacni dhibka aala qabsataan maamadaas oo usoo duceysaan dhibaatada haysata usoo duceysaan oo hooyo Soomaaliyeed oo toddobadeeda caruur ah laga qaatay waxaan rabaa ducada xaggiina inaa ka soo wadiin idinkana asxaabta sharafta badan oo usoo duceysaan inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ilmaheeda ugu soo qaado gaaladaas gacanta ku hayso runtii waa arrin aad u xanuun badan aad u xanuun badan bal ani horta sheeko wax ma tarisay asxaab waxa idinkiga sheekay waxa fiican in idinka daawatiin oo yaani wixii hadal ahna marka soo ka dhigi kartaan maahan bal daawada ila daawada asxaabta qaaliga waxaan ka codsanayaa Soomaalida duco maalinta 21 January waxaan marayaa maxkamadii waxa iga xaq darro iga qaatay toddobadeeda caruur dad aan igu diin ahaan igu dad ahaan igu deegaan ahaan waxa ilaahay iiga baridaan inuu ilaahay rabbiga subxaana qaadirka iiga soo afduubo inuu ilaahay iiga soo qaado intaas oo bilood ilmahayga ma arkin bishii shanaada noo socoto maanan arkin dad ilmahoodii dilay baa la siiyay dad ilmahoodii dhibaateeyay baa maxkamadda ilaahay uga fudeeyay annagu kamuunka deganaa waa kamuun xaaladiisu ilaahay og yahay islaamnimada necab madowga necab rabbigaan ku dhaartay gabar aniga iga dambeysay oo cunugeeda yarka ku dhufatay fiilayar ee mar dambe inta la qiratay baa wallahi meel waxa la geeyay ilmaha sida loo haayo iyo sida waalidiinta ay iskula dhaqmaan si loo tababaro baa la geeyay oo ilmaheedii loo ogolaaday anigana ilmo waaweyn baa xoog la iiga haystaa oo xatii xuriyadooda aan ku hadli karin oo la cabsi galiyay oo inka loogu ribeynaya akhlaaq darro marka ilaahay ii barya rabbi subxaana qaadirka aniga waxaan u baahanahay duco baan u baahanahay Soomaalida oo dhan aan duco uga baahanahay waxaan codsanahay runtii asxaab oo kastiishkaas aan markaan dhageystay aan daawaday aan daawaday oo hinta iga imaatay bal maxaan isdhaa waxaan adigsan ku dhibay waa u duceeyay runtii waa u duceeyay inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ilaahayna waxaan ka baryaa inuu ducadeeda u aqbalo idinkan asxaabtayda qaaliga sharafta badan usoo duceeyay inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ducadiina u aqbalo soo duceey insha Allah hadana daawano asxaabtayda qaaliga waa daawateen oo umaleynaa waana aragteen idinka waana daawateen oo umaleynaya asxaabtayda qaaliga wili waxaan u dhiman hadda waxay ka sheekayso kaliya intaas yacni maalintaas inay maxkamad marayso ilmaheeda 21 bishaan ay maxkamad marayso runtii waa arrin aad u xanuun badan oo aad iyo aad wallahi aan
asxaabteeda qaaliga ama hadli kareen mar hadal ma iga soo baxaa laakiin waxaan rajeynayaa inaa idinku usoo duceysaan waa arrin aad iyo aad u xanuun badan waa arrin aad iyo aad ugu naxay waa arrin ummad badan soo taabatay qalbigooda walaa qalbiga aad ii xanuunay waayo waa hooyo maahan waa iyada asxaabe waa hooyo haysata iyo 7 caruur 7deeda caruur ilmahaagii aad haysato war 7 iska dhaafay mid aad hadda dhashay xataa waa laga qaadanaa daalla ma yeelaysid mana u dulqaadanaysid ka waran 7 gurigaaga kuu joogtay guri ku haysatay hadda intuu gaal yimaado kaa aruursado ka waran ilaahay rabbi raxmaan ummadda muslimiinta ka qabo gaaladan ee ka bixi runtu wax aad u xanuun badan waa waxaan la qiiroodo waa waxaan la ooyay runtii waana wax aad ii taabtay marka asxaabteyda qaaliga waxaan rajeynaa idinkan inaa usoo duceyn doontaan waa baayadaas aad dhihi doontaan hooyo ilaahay subxaana watacaala qof laga yaabo ducadiisa inuu aqbal yahay idinka dhammaantiin saa u dhantihiin inaa usoo duceysaan baayo oo hoos commentiga ugu soo qortaan weli videogu maynoo dhammaynin laakiin asxaabteyda qaaliga runtii waa arrin aad iyo aad ugu xumaanay waa arrinaan la yaab iyo fajax igu noqotay waa 7 caruur hal cunug ma 2 cunug ma ahan waa 7 hal mar asxaab la qaatay waa 7 hal mar laga qaatay 7 caruur waaye war 7 hal xaba 7 iska dhaafan ku dhaamida caaw dhashay xataa daal dhawaa laga qaadana ma yeelaysid mana u dulqaadanaysid iska wadaa 7 aad dhashay in la yimaado la aruursado ilaahay subxaana watacaala waxaan ugu baryaynaa inuu ilaahay subxaana watacaala gabadhaas usoo fududeeyo miskiinta ah ee joogto an meelay joogto xataa wallaahi ma ogi laakiin meel walba adduunka ka joogto asxaabi usoo duceeya adduunka walaalo lagu yahay qaaqara cid wax isku qabanaysa ma lahan yacni cid oo qof kale ay ugalaysa ma lahan sararta laakiin adduunka walaalo lagu yahay aan wax isku qabana aan isku gurmana aan isku hiilina maysan ahayn asxaabe runtii aad iyo aad ugu xumaaday idinkana bal markaad daawatiin waad ku xumaani doontiin asxaabta Caaisha Lifestyle ku xiran dhammaantiin waxaan rajeynayaa inaa idinkana ducada ka qayb qaadan doontiin oo commentiga kusoo qori doontiin oo usoo duceyseen abaayo annagana arki doono sida ugu soo duceyseen runtii asxaabe waa la yaabay aniga waxay ila noqotay wax aad ola yaabay ila noqotay bal idinkana daawada hadda hor u daawateen haddii kalaba hadda insha Allah asxaabta Caaisha Lifestyle waad arki doontiin barnaamijka soo socda 21 asxaabe waxba kama dhina maalmo yaraa ka dhiman waa maanta 7 bisha maraysaa maysan waxa ka dhimanaaba iska yar asxaabta qaaliga ah ee waxaan ku dhihi lahaa ani waxaan dhihi lahaa ilaahay u soo fududeeyo ayadan ummadeeda Soomaaliyeed waxay ku codsatay inay u soo duceeyaan ducay ka codsatay dadkeeda inay u duceeyaan sidii ilmaheeda ay u soo hesho maalinkaas insha Allah waa ku farxi lahaa maalinkaas taariikh 21 January in ayada ilmaheeda nabad qaba ay gurigooda ku soo laabtaan insha Allah saasaan u rajeynaynaa aan ugu rajooynahay ducadana waa xaqiina asxaabe annagana waa u duceynaynaa wallahi asxaabteyda qaaliga waxaan la yaabanahay maqaana qof ilmihii uu dhalay inta loo yimaado laga qaadanayo taas ka waran idinka asxaabe wadamadan gaalada dadku ku rafaadsan yihiin wallahi wayna ku dhibaataysan yihiin cunuga dhashaa lagu xukumaa inta guriga lagu yimaado laga qaadanaya wala waxna ma dhigi kartid mana u diidi kartid ka warna cunugaagi ayaga kula dhaleen ayaga kula dhaleen saas u fahmay yani way kula haystaan ilmahaas lagu ilaalsanaya waayo cunugaagi wax ma dhigi kartid Allah ma canaanin kartid ina shibka dhaadid leh waa aadan la hadlin wallahi wadamada gaalada lagu dhibaataysan yahay yani wadamada sita lagu dhibaataysan yahay inta Soomaali bis hataa ma inta muslim ee cunug laga qaatay ee ku dhibaataysan meel walba u soo duceeyay asxaabi ilmaha sidoo waa nuurka indhaha waa nuurka guriga waxaan ku dhahay maanta haduu hal xabid yariiska hataa dhashay hataa oo laga qaata waxaad dareemaysaa qurbo waxaad dareemaysaa walwal waxaad dareemaysaa xanuun waxaad dareemaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaad dareemaysaa wax la yaab leh ka waran halaaba saas dareemaysaa 7 iyagoo guri ku joogeen hadda laga tahay aruursada ka waran
وهذا محكمة إسلا صار روان والله وأرنا آدي ugu xumaanay asxaabteeda qaaliga waxaan u rajaynaynaa gabadhaas walaashaan inuu ilaahay subxaana wa tacaala ilmaheedii iyadoo nabad qaba isku yimaadaan inay kusoo guulaysato maalinkaasi 21 bisha ay kusoo guulaysato maxkamadda ay kusoo guulaysato insha Allah haday kusoo guulaysatana way noo soo fadhiisan doontaa sidii hadda video quruxda badan noogu soo duubtay iyo noogu soo duubi doontaa iyadana annagana insha Allah waa sugeynaa inay soo guulaysato ee iyadii ilmaheedii salaam ee wada had yani isla yimaadaan gurigooda nabad qaba ay isla yimaadaan wallahi waa yaab arinta ay ka sheekeynayso wallahi markaan dhageysto asxaabteeda qaaliga idinkana waa ila dhageysan doontiin markaan dhageystay arinta ay ka sheekeynayso wallahi waa la yaab ila noqotay asxaabta sharafta badan bal idinkana insha Allah waad arki doontiin markaad aragtiin faahfaahin ka soo bixiya la soo had yani usoo duceeya ducadiina maanta loo baahan yahay ducadiina muhiim ah inaad soo duceysaan waa baayada soo duceysaan ducadaas muhiim idin noo ah asxaabay annagana waa u duceynayna inta karaamkeena waa u duceynaa haddana u sii duceynaa inta laga gaarayana maalin walba salaad walba oo tukatid u duceey anigana waa u duceynaya aan u wada duceyna gacmo wada jiray wax gooyaan aan gacmaha isqabsana anaga le wax isku ah muslimiinta inaan iscaawino waa inaan isgarab istaagna siiba Soomaaliyeed aan nahay waa inaan qof walba dhibaataysan garab istaagna asxaabay caruur la iska qaatana ciyaar ma ahan wax inta ku soo yaalan ma ahan maanta inta saaidin wada asxaabteeda qaaliga hal iga raali noqdo wixii dhacay hal laga raali noqdo dib ma laha waxaas asxaabteeda mar walba asxaabteeda waxaa tiindadaan jeclahay wanaageeda jecel ayagana wanaagooda jeclahay asxaabay saan u soconay idinka bis meeqaasan asla soo soconaa mid taqaaniin asxaabteeda waqti badan asla soo soconaa waxaa noqonay bis hal family noqonay markaas asxaabta maanta isoo wacda oo ku dhahay elkaas ma lagu koobi karo wala aad iyo aad u mahadsantiin dadkayga waa idin jeclahay madax korkiisa ay saaran tihiin hadalkiina hadal ma kor saari karaan hadalkiina hadal ma kor saari karo waxa idinka aadin aan ku soconaya inta saan ugu baxaya baydaas in loo soo duceeyo insha Allah aan isku garana videogaana si share garay soo u gaaro qof walba oo Soomaaliyeed soo asagana ugu soo dhiibto fikirkiisa oo ugu soo duceeyo baa in loo duceeyo u baahantahay muhiimadeena waa in ayada loo duceeyo marka asxaabteeda qaaliga si share garay gaarsii walaalaha kale ha u soo duceeyana ilmaheeda in loo soo celiya laga yaabaa hal mar haddaan wada kacno loo wada duceeyo ducadeena Ilaahay waa aqbalaa insha Allah Ilaahay ducadeena waa aqbalaa asxaabteeda qaaliga intaasna waxaan rajeynayaa inaad meel walba gaarsiin doontaan si oo ay ducadeena aqbal u noqoto insha Allah laatani koodana farxad ku soo dhamaanay waa saan rajeynaa ilaa sida wixii khayr Ilaahay laga rajeeyo Soomaaliya asxaabay wixii khayr ku jiro Ilaahay nawaafajiyo wixii shar wada iyo sharta Ilaahay dhinaca naga mariyo insha Allah asxaabteeda qaaliga saas iyo nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The remix.